arrintan aanu u nimid waa intaa la idinka warramay muggeed iyo miisaankeedaannu siinaynaa arrintu mar hadday soo noqnoqoto waa halkaa caaqil daahir sheegayo ama xaajo ku jirtaa laga saaraya ama midaan ku jirin baa lagu daraya insha allahu tacaala waxaynu isku dayaynaa xaajadan inaan lagana degdegin laguna degdegin in insha allahu tacaala la qodxanya bixiyo in loo kala qaado bal heshiisiin iyo nabadayn waa laba arrimood oo kala duwan inta la heshiisiiyaa loo kala tegaye inaannu insha allahu tacaala ilaa nabadaynta aannu daba soconno oo dadka dhex marro oo ilaahay hadduu ku roon yahay dhallinyarada isku xidhno oo ilaahay hadduu ku roon yahay dumarka guddiyo ka samayno heshiisiinta dabadeedna ka tegi mayno ee nabadayn baannu bilaabaynaa hayaag iyo hagara haddii eebba idmo xaajadan qof kasta oo dhulbahantii waxbuu ka geysan karaa qof kasta oo dhulbahantii meesha uu joogo ka ugu yar waa ka u soo duceeya ka kale waa ka la soo hadla waa ka canaanta ama dhallinyaradu waxbay ka qaban kartaayoo dhallinyaraday la hadli kartaa waa la booqan karaayo intanay idiin jiraan labada dhinacba odayaashay la hadli karaan culimmadu waa soo ducayn kartaa waana soo wacyigelin karaysaa hawshan cid gaarayaan lagu eegayn annaga keliya kuma filin in dhulbahanta isu wada taagaa loo baahan yahay haddii eebbaydno in la isu wada taago qof walbaaba inta uu ka qaban karo uu ka qabto hadday duco tahay iyo hadday xaajada inuu u dhaqaaqo oo u qumaba tahay insha allahu tacaala ma yara intayan inugu gaadhin tii khayr cabdiya bahara samoo kale inaynu halkan ku xakamaynaynu u baahnay maanta beledu meesha ay marayso maalinba in lagu joojiyey ku habboon tahay ilaahayna waxaynu ka baryaynaa walaaltinimadooda iyo wada dhalashadoodu inuu u soo cesho cid iska xigtaa ma jirtee in ilaahay wada dhalashadii iyo walaaltinimadii iyo waxay isku hayeen in ilaahay u soo ceshaynu ilaahay ka baryaynaa nabad waarta inuu dhex dhaliyaynu ka baryaynaa wiilashaa dhimanaya ee dhexdooda ku dhimanaya in ilaahay inoo badbaadiyo oo dhimashada inooga badbaadiyaynu ilaahay ka baryaynaa in aan qaylad dambe oo ina soo kiciso oo ina laab qaaddo oo aynu ka walwallo ayan dhexdooda ka yeerin baynu ilaahay weydiisanaynaayo ka baryaynaayo gacmaha kor ugu taagaynaa ilaahay ha u aqbalo innagana ha inaga aqbalo dadaalkaa iyo orodkaa loogu jirana ilaahay kama dhiga mid lagu guul darraysto insha allahu tacaala